Maxaa ka jira in Paul Pogba uu ka baxay xulka qaranka Faransiiska kadib hadalladii Macron? Laacibka khadka dhexe uga dheela kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa beeniyay wararka sheegaya in xulka qaranka Faransiiska ka baxay kadib hadalladii madaxweyne Macron ee Muslimiinta ku wajahnaa. Waxaa jiray warar sheegayay in ciyaaryahankan caalamiga ah uu ka baxay xulka qaranka si uu u muujiyo caradiisa ku aadan hadalka madaxweyne Macron ee Islaamka ka dhanka ahaa. Pogba ayaa warkaas ku tilmaamay been abuur. Qaar ka mid ah wargeysyada Britain ayaa qoray warar ay ku sheegeen in Bariga Dhexe ay ka soo xigteen oo sheegaya in Paul Pogba uu doonayo inuu xulka qaranka Faransiiska ka tago, kadib markii madaxweynaha dalkaas uu sheegay in uu ka hortagayo Islaamka xagjirka ah, taas oo ka dhalatay weerarkii lagu dilay macallinkii ardaydiisa tusay sawir lagu sheegay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Weerarkii lagu dilay Samuel Paty wuxuu dhacay 16kii bishan Oktoobar. Laacibkan u ciyaara Manchester United oo Muslim ah wuxuu bartiisa Instagram-ka ku qoray: "Wararka beenta ah lama aqbali karo." Wuxuu hadalkiisa ku daray in xulkiisa Faransiiska uusan ka tagin.